السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبة وسلامتين سيدو كلا رمضان كريم كسود ودا برنامج كينا أخبارات كفلام ترك قدام بي انت بدن برنامج كينا ما انتو حان كاقل لدولنا بولود كي يكون فرو هندية انت انا قدو قلين برنامج كهديتا مركي كوغوري صوب قونيسا جانالك سبسكرايب نوصار هانا يلوين انا مقال كلاقي نوصارتم انكو بلاونا قدو كينا كوا صاحبة قيمها بنت اللافي في جي فيلم كيسا بستي markaan saaxiibada qiimaha ban diidmo xooggan ayuu kala kulmi doon dhammaan wadamada islaamka maadaama saaxiibada qiimaha ban filimkan farintiisa aad loo dhaliilay sidaan ka warqabno Vijay wuxuu soo wadaa filimkiisa lagu magacaabo Beast sidoo kale filimkan waa filim weyn sidoo kale saaxiibada qiimaha ban filimkan waxa hore lagu soo bandhigay waxa loo yaqaan teaser ama goosgoos ayaa laga soo bandhigay sida daraadeed goosgooska filimkan laga soo bandhigay hadal hayn xooggan ayuu dhaliyay saaxiibada qiimaha ban sidaan ka warqabno goosgooska filimkan laga soo bandhigay Tel Aviv Vijay wuxuu ku sugan yahay meel mool ah sidoo kale shacab ay joogan sidoo kale waxa soo weeraray kooxay afka u dooban sidoo kale kooxdaas waxa lagu sheegay inay yihiin terrorist ama argagixiso inay yihiin sida daraadeed saaxiibada qiimaha ban wadamada islaamka inta badan way ka xanaaqeen sida daraadeed waxa leeyahay Tel Aviv Vijay filimkiisu waa filim inta badan dadka muslimiinta wax loogu yeelay maadaama filimkan farintii saaxiibada qiimaha ban goosgoos laga soo bandhigay ay tahay koox argagixiso ay soo weeraraysa mool sida daraadeed waxa leeyahay filimkan diidmo xooggan ayuu kala kulmi doonaa wadamo badan oo islaam ah haddana saaxiibada qiimaha ban sida hadda shaac laga qaaday filimkan Beast gabi ahaanba lagama daawan doon wadanka lagu magacaabo Kuwait sidoo kale saaxiibada qiimaha badan waxa leeyahay filimkan Tel Aviv Vijay waxa uu qatar ku jiraa in wadamada kale islaamka ayagana diidmo xooggan ay kala kulmaan sida Sacuudi Carabiya Qatar Oman Bahrain dhammaan wadamada islaamka ayagana in iska diidaan filimkan Beast taasoo saaxiibada qiimaha dhabar jab xooggan ay ku noqon doontaa timka iskale filimkan Beast maadaama inta badan diaspora dhankaasyo wadamada islaamka ay ku nool yihiin diaspora hinda badan oo dhankaas ayaa ku nool saaxiibada qiimaha badan wadamada carabta sida daraadeed saaxiibada qiimaha ban Tel Aviv Vijay filimkiisa hadda waa la iska diiday dhankaasi kuwad sidoo kale waxa la rajayn doonaa dhawaan wadamo badan oo muslimiinta inay diidi doonaan maadaama filimkan goosgooska laga soo bandhigay inta badan lagu goofayo dadka islaamka maadaama la leeyahay koox argagixiso ay soo weerartay meel mool ah sidoo sida daraadeed waxa la leeyahay hadda gobay ahaanba filimkan Kuwait lagama daawan doono haddana waxa la rajayn doonaa saaxiibada qiimaha wadamo badan oo islaam ayagana inay filimkan ka farcirin doonaan laakiin hadda joogto ay ku bilaabatay filimkan isla qabaaraadka kala saaxiibada qiimaha badan filimkan Beast aan ka soo qaadan karno waxa kamid ah markan waxa lagu dhawaaqay filimkan inuu yahay ban indi min Turila magaal ay laga daawan doonaa marka hore filimkan Beast waxa la qorsheeyay galiyay saaxiibada qiimaha badan in laga daawado dhankaas Tamil sidoo kale Telugu laga daawado laakiin hadda waxa shaa laga qaaday in filimkan lagu daawan doono luqadaha kala Tamil Telugu Hindi Malayalam dhammaan luqadaas ayaa lagu daawan doonaa sidoo kale saaxiibada qiimaha filimkan Afindigana goosgoos ayaa laga soo bandhigay intaas kuma ka saaxiibada qiimaha badan filimkan dhankaas iyo luqada Hindiga marka lagu daawanayo tiyaatar ayaa shaac laga qaado waxa la sheegay saaxiibada qiimaha ban tiyaatar gaaray 700 ilaa 600 oo shilimo ayaa la siin doonaa sidoo kale saaxiibada qiimaha ban filimkan hadda dhankaasi Kuwait waa la iska diiday sida daraadeed waxa la rajayn doonaa filimkan markii gudiga inta badan aflaamta daawo marka la horgeey wadamo badan muslimiin ah inay iska diidi doonaan ogaada filimka inta la daawan gudi ayaa jir inta aflaamta ay daawan ka bacda ayaa shilimooyin kala saaray sida daraadeed waxa leeyahay hadii dhankaas iyo Qatar iyo sidoo kale Bahrain iyo sidoo kale Sacuudi Carabiya hadii filimada gudiga ay daawan ay ka heli waayeen gabi ahaan laga ma daawan doono filimkan sida daraadeed saaxiibada qiimaha wixii ka soo kordho barnaamijyada dambe ay ku ogaan doontaan kala barnaamijkan ku soo qaadanayna waxa kamid ah saaxiibada qiimaha badan in bacaad maan kaartada koowaad laga soo bandhigay Masmaraja Rafi Teja wuxuu soo wataa filim ku magacaabo Tagar Nagashwara Raw filimkan sidoo kale waa ban India waa filimka ugu horeeyay ban India uu sameyn doono Rafi Teja sida daraadeed saaxiibada qiimaha badan kaartada hortana ka muuqato ayaa laga soo bandhigay waa ninkii Rafi Teja sidoo kale saaxiibada qiimaha badan dhawaan shaqada filimkan waa bilaaban doonta waxaana tirsho ku adkaa filimkan goor lagu magacaabo Noborson sida daraadeed kaartada hortana ka muuqato ayaa laga soo bandhigay waa ninkii Masmaraja Rafi Teja saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadan doonaa filimka weyn Tarbar Aryo waxa uu suurtagal ganacsigiisa waxaana uu guur u diri doonaa tiimka iskale filimka Tarbar Ar maadaama hadda saaxiibada qiimaha badan luqadaha dhammaan guud ahaan dalka Indiafaha caalamka filimkan ku noqday hidda meesran ku noqday sidoo kale gobol qaadna wuxuu ka noqday all time blockbuster meel kalena super hit ayuu ka noqday saaxiibada qiimaha badan filimkan Tarbar Ar wuxuu gudo galay wiigiis laba u tiyaatar saaran yahay sidoo kalena 12 maalmood ganacsi guud u sameeyay la fiirin doonaa sida hadda shaac laga qaad saaxiibada qiimaha badan filimkan dhulka laga leeyahay waa Telugu wuxuu soo xiray lacag gaaraysa 358 karoor ay soo xiray qolay cajaladaha qey waxay keeneen saami gaaray 239 karoor bar oo faa'iido ay ka heleen ogaada marka horena filimkan Telugu kali waxa lagu ibsaday lacag gaaraysa 190 karoor lagu ibsaday taasoo ka dhigan filimkan macaash waali in laga helo dhulka laga leeyahay Telugu sida daraadeed waxa shaac laga qaad Telugu filimkan inuu ka noqday all time blockbuster ay
ka noqday sidoo kale filimkan saaxiibada qiimaha badan ganacsigiisa guud ahaan dalka Hindiya daafaca caalamka markaas ku darno wuxuu soo xiray lacag gaaraysa 920 karoor soo xiriyay qoliyaha cadaaladaha qayb waxay ka heleen saami gaara 510 karoor bar ay ka heleen oo faa'iido ah ama share ay ka heleen sidoo kale saaxiibada qiimaha badan ogaada filimka marka hore wax lagu bisay lacag gaarayso 451 karoor sidoo kale dhameystir noqdo waxa laga rabaa in dib u soo lacag gaarayso 453 karoor sida daraadda filimkan lacagtiisana uu soo celiyo hadda natiijana wuxuu noqday hid dhameystir ayuu noqday sida daraadda saaxiibada qiimaha badan filimkan lagu magacaabo Tarbar Ar hadda waa hid dhameystir sidoo kale maalmaha soo socda wuxuu dagaaltami doonaa sidoo ku noqonaya soo barhid ilaa blockbuster dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan hadii filimka Tarbar Ar uu hid dhameystir noqdo sidoo kale wuxuu burburay sidoo kale ciid u cunsi filimka lagu magacaabo Attack hogaamiyaha Murqaniga John Abraham saaxiibada qiimaha badan ka xunna John Abraham jugta ayaa ku badanaysa maadaama filimkiisa Attack uu noqday filim burburay oo dadka qaaday filimkan wig indigiskoodu dhameysay sidoo kale isniinta ganacsi u sameeyay waa wax aad u liit lacag gaaraysa 1 karoor ilaa 1.25 karoor soo xiray taasoo ka dhigan almost 80% hoos u dhac wala ayuu sameeyay waxa isla fiirin doonaa filimkan 4 maalmood tiyaatarada saaran ee ganacsi sugud filimkan jamacada la soo dhaafay tiyaatar la saar wuxuu soo xiray lacag gaarayso 3.25 karoor sabtidii wuxuu keenay 3.25 karoor axadii wuxuu keenay 3 karoor bar isniintiisana wuxuu sameeyay hoos u dhac wala 80% taasoo ka dhigan in isniintu soo xiray lacag gaarayso 1.25 karoor soo xiray wadarta gud filimka 4 maalmood tiyaatarada saaran wuxuu soo xiray lacag gaarayso 11.25 karoor soo xiray taasoo saaxiibada qiimaha badan niyad wali ayaa laga qaaday filimka Attack part 1 taasoo ka dhigan saaxiibada qiimaha badan John Abraham culayska ayaa ku badnaanaya maadaama ninkan aflaamtiisa ugu dambeeyay oo la imaanay ay dadka ka wada qaadayeen filimkan sheekadiisu waa la amada laakiin saaxiibada qiimaha badan doofaata Tarbar Ar ayaa cunsiisay ciidida saaxiibada qiimaha badan marka aan soo qaadana Today History maanta oo kale aflaamta caan kala daawaday maanta oo kale waxa la daawaday filimka caanka lagu magacaabo Caanqeen filimkan waxa la daawaday saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa la daawaday 5 Abriil 2002 ayaa la daawaday markaan fiirno hogaamiyaasha filimkan waa Amitabh Bachchan Akshay Kumar Sushmita Sen Arjun Rabal sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filimkan waxa la saar tiyaatar gaaray 310 shilin ayaa laga daawaday waxa lagu qarid garay filimka miisaanad gaaraysa 17 karoor cumraantiisana filimkan wuxuu soo xiray sida diiwaan gashan lacag gaaraysa 17 karoor bar sida daraadda natiijada filimkan wuxuu noqday average ayuu noqday markaan fiirno filimkan waxa tigid u goos shaleemada ka daawaday gaaray 9,493,000 qof ayaa tigid u goos shaleemada ka daawatay wuxuuna kamid yahay filimada aadka loo jecel yahay dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan maanta oo kale waxa la daawaday filimka lagu magacaabo Jasmine Bador filimkan waxa la daawaday 5 Abriil 2013 hogaamiyaasha filimkan waa Rishi Kapoor Ali Safar Taapsee Pannu sidoo kale filimkan waxa director-ka ninka lagu magacaabo Dave Dhawan filimkan waxa la saaray tiyaatar gaaray 1500 shilin ayaa laga daawaday waxa lagu qarid garay miisaanad gaaraysa 20 karoor cumraantiisana filimkan wuxuu soo xiray lacag gaaraysa 42 karoor sida daraadda natiijada filimkan wuxuu noqday hid dhameystiran ayuu noqday markaan fiirno filimkan waxa tigid u goosto shaleemada ka daawad gaaray 4,900,000 qof ayaa tigid u goosto shaleemada ka daawatay waxa halkaas inagu saaxiibada qiimaha barnaamijkan akhbaraadka aflaamta wararka ugu dambeeyay kuma santiin daawashada daawateen muuqaalkan haddii taa markii kugu soo boqonaysa channelka subscribe noo saar sidoo kale adawin ina muuqaalka like noo saarto aragtada comment noo qoreeb hadda kamid saaxiibada horna oo jooga fadlan muuqaalka share dhisay saaxiibana agsan oo kale channelka ugu soo biran inta barnaamijkan barnaamij mid ku kulmeen sidaas iyo amaan Allah salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh